mahad soo dhawow halo waan ku maqlaa mahadow soo dhawow waxaa tagtay goobta uu qaraxu ka dhacay marsii horeysay hadda xagee baad ku sugan tahay waad maasan tahay maxamuud cabdinaasir maxamed soofeysane iminka waxaan ku suganahay gudaha isbitaalka digfeer ee muqdisho oo qaabilay dhammaan dadkii ku waxyeeloobay weerar ka dhacay iyo maqarax inkastoo si rasmi ah loo cadeen qof ismiidaamiyeen u ahaa iyo inay ahayd qarax wax meesha yaalay kaasoo ka dhacay gudaha hool lagu shiro oo ku yaalo xarunta maamulka gobolka banaadir dadka halkan la keenay waxay isugu jiraan dad dhintay dad dhaawacmay kuwa culus iyo kuwa fudud intaba waxaan ku xaqiijin karaa iminka waxaa ku sugan gudaha isbitaalka digfeer ee muqdisho inta badan shaqaalihii maamulka gobolka banaadir iyo mas-uuliyiintii gudoomiyaashii degmooyinka inta hadda iyagu caafimaad qaba waxaa la sheegayaa inay jiraan gudoomiyaal qaraxaasi waxyeelo kasoo gaartay qaarkood dhintay halka qaarkood dhaawac yihiin inkastoo magacyada iyo weliba gudoomiyaashii ay kala ahaayeen dadku weli aan loo kala xaqiijin qaybta waxaa xiran gebi ahaanba gudaha isbitaalka oo waxaa la joogaa qaybta gargaarka degdega ilinkiisa hore ayay mas-uuliyiintu iyo weliba dadka eheladooda soo booqanaya halkan ay ku wada sugan yihiin dadka gudaha ku jira weli xaaladooda lala tacaalaya waxaa ka mid ah duqa caasimada injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yaariisoow iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka gobolka banaadir shaqaala ayaa ka mid ah iyo weliba gudoomiyaal degmo wararku qaar waxay sheegayaan in dadka dhintay ay ka mid yihiin agaasimo waxeediyo maamulkii gobolka banaadir ah inkastoo weli si sax ah magacyada iyo tirada rasmiga ah dadka dhintay halkan aan weli la xaqiijin marka laga soo tago mas-uuliyiinta qofba wax uu kuu sheegayo balse tirada bahda caafimaadka weli way ku guda jirtaa la tacaalidooda waayahay mahad gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir tuulax oo la hadlay warbaahinta qaranka waxa uu sheegay in dhowr gudoomiye degme ay qaraxaasi ku dhinteen wararka qaar waxa ay shaki gelinayaan nolosha injineer Yaariisoow oo la sheegay in dhaawac uu yahay marka gudoomiyaha gobolka adiga qolka uu ku jira iyo xogtaas ma hesha inuu nool yahay waa maasan tahay maxamuud inkastoo weli si sax ah aan loo xaqiijin dadka dhintay tiradooda rasmiga ah iyo weliba xilalka ay kala hayeen balse waxaan ku xaqiijin karaa in dadna ay dhinteen dadna ay dhaawacmeen balse goordhow bahda caafimaadka waxa ay yidhaahdeen waxaan xaqiijin doonaa inta geeriyootay iyo inta dhaawacan waxaan kuu sheegayaa in weli laakiin gudoomiye Yaariisoow halkan isagoo la keenay dhaawaca welina bahda caafimaadku ay gacanta ku hayaan waayahay aad baad u mahadsan tahay mahad maxamed cabdiraxmaan oo